nasiib darro kuma aanu samayn dowladdii Soomaaliyeed sahan biyo ah oo lagu horumarinayo deegaanadii loo yaqaanay Gaariwaa taasina waxay sababtay inaan la aqoon kaydadka biyaha ee ku jira dhulka Puntland kadib markay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya ayaa warbixino ay soo saareen dhowr hay-adood waxay ku sheegeen Puntland inay tahay dhulka oo manaxigeenka ah midaasi oo macnaheedu tahay inaysan dhulka hoostiisa ku jirin kaydad biyo oo waaweyn isla markaana biyaha ku jira dhulka hoostiisa ay u badan yihiin kuwa adag kana hooseeya 50% halbeega caalamiga ee loo yaqaano water pH garow rajoona Gaariwaa baa la oran jiray dadku wax horumara iyo wax dhaqaalaha iyo wax lagama sameyn jirin dadkii dubataatiyaal baa la dooran jiray iyo axmed bay iska joogi jireen markii waqtigu ka dhamaaday imaan jireen iyagoo doorasho doona dabeedna maxamed siyaad baa qabsaday oo sidii bay ku aakhirantay Puntland biyuhu waa ku yar yihiin marka laga hadlayo biyaha hoose sababtuna waxay tahay innaga oo ka faa'iideysan weynay biyaha kore roobka aynu helno intaasoo kun oo tan sanad walba ay badda galaan sidaas daraadeed biyaha hoosena waxay ku xiran yihiin biyaha kore kaydintooda marka aad bay ugu yar yihiin biyaha hoose dib baan laga kulma qodaalkooda xaafada halkan degan bulshada halka ku nool biyaha waxay ka heshaa sida toga iyo ceelal hore oo iska dawray oo iska maartay aan aasmay hadda xaafadu wax biyo ay leedahay ma jiro wax laga cabaa waa toga baahi waxa jida biyood oo aan u baahanahay magaaladu biyaha kan dhulka la xidhisha ma lahayn عيال الجريرة ململة ولا قاعد بدلوا بهالي هذا أساس ولا قاعد أبيه عمري أساس مغني عمري عيال كاتان وعيال شيء هراء وليس يروح يسقط قطني مركب حوي تدخل بيولوجيا ومساكين تدخل وما هيستان نور الحين بيكونوا ليه 25 bishii 2006 ayay ahayd markii dawladda Puntland iyo ganacsato gaar ah ay asaaseen shirkad ku dhisan qaabka wadaaga si loo horumariyo loona tayeeyo biyo-gelinta magaalada Garowe halkan waxaan nimi iyadoo lulki soo qaxay baan nimi dadkii u sabiyaysan ceelal dhaadheer oo la qoday oo intaas oo mitir dhowr 20 mitir qaar yahay qaar 15 yahay oo biyo xaraar oo qurmoon oo qaar bisqulu hoos kaga soo siimo ku soo sameeyaan oo aan aqoon gootaan dadkii leedahan dhowrin anagoo ay sunimi waxa warsida wax ka bedelo aan dhaqaale raadino oo ceelal ay raadino aynu reega raadino aynu isu tagno dalka aan biyo wanaagsan oo nadiif ah hab iska xaraaraadeen oo la filtaraysto hadii la rabo oo lagu qubayska iyo ku filaada aan raadino sidaasaan u khaliftay dadan wanaagsan ma lahayn laakiin waa ku qaracsanayno anagu sida ay tahay waxay noo ahay wax macaan laakiin hadda kuwan markii la helay ma ba isticmaalo ceelisha noqday ma isticmaalo waa laga yaabaa xilliga in dadkii joogay Garowe ay aad u soo dhaweeyeen waayo waxa la cabi jiray
biyaha maxaan ku raacay gacmeed waxa lagu dhaasan jiray gaari gacan waxa lagu dhaasan jiray maxaan ku iraahdaa booyad laakiin annagu waxaan ka duulaynay ceelka waxa laga soo baxayaa waa xoog biyuhu mar walba ama ceelka gurigaaga ku yaaleen ama ha ku yaaleen mid kale biyuhu waa wax ummadda ka dhaxeeya laakiin waxa annagu aan u qurnay waxay ahayd servicekii iyo dadkii in loo fududeeyo in biyihii helaan tan labaadna waxay ahayd oo kale ceelashan gaagaaban iyo maxaan ku yidhahdaa biyahan togga laga cabiyahay inay ahaayeen xilliga biyan aan ku habboonayn maxaan ku yidhahdaa caafimaad ahaan oo biyo aad u nadaafad daran ay noqonayaan inta badan dadku waxay ka cabayeen ceelashaasoo ceelasha gacmaha ah oo biyaha ay dowraan marka roobku uu yaraado oo waqtiga abaarta ay noqoto inta badan ay musqulaha ku shubaan biyaha iyo ceelashu isku shubaan sida aniga hadda qal aan ku lahaa gurigaygan oo hoteelka ku qabsan waxa ku soo shumay hoteelka igu dhow isqushiisa qal biyo badan oo waliba haambu jira waxa weeye xoogaa mar baan saan waxaan aragnay meesha ceelka biyo noqday marka ceelashu inta badan markay abaar noqoto waxa isku shumeeyay musqulaha iyo ceelasha saa darteed baa dadka waxa ku dhici jiray cudurro shuban iyo maartay marmar kaloora iyo waadinka arkay hadda boosaaso kale in badan laga qeyrin jiray kaloora in dhow kuma aydan maqal intii biyo gelinta loo isticmaalay garowe waad aragtay sidoo kale meelaha magaalooyinka dhan hadda waxaad moodaa xagga caafimaadka marka sababta loo asaasay waxay ahayd in la helo biyo dadka ku filan iyo in la helo biyo nadiif ah oo laga cabo waxa muhiim ah biyaha si ay ugu gudbi karaan jeermiskani waa inaad isxar soo raacayso waxay u gudbi kartaa kow marka hore directly in sid dirita in loogu shubo oo jeermiskii iyo dee saxadii iyo wixii dadka yimi iyo qurunkii lagu shubayo biyihii meeshii laga saaray oo qodobka labaad in daadadku intay wasakhda soo qaadaan ay biyihii galaan qodobka saddexaad in oozing waxa la yidhaahdo amaba siimow inta musqushii iyo biyihii isku dhow yihiin ay ciidda sifayn karaysaa ee reebi karaysaa jeermiskaasi ay yar tahay kabacdi ay gudbaan bacteria si looga hortagi karaa waxyaalaha ka midka ee laga hortagi karayo waxaa ka mid ah kow ceelku inuu ka dheer yahay qadar adow ilaa around 50 meters hadduu gaadho ama uu borehole yahay waxaa ceelkaas waxaa adkaanaysa in bacteriadu gaadha sanadka 2015 waxaa la cusboonaysiiyey siyaasadda biyaha iyo sharciga maareynta biyaha oo wax ka tari doona horumarinta hanaanka maamul wanaagga shuruucda biyaha ee Puntland. Garowe waa caasimadda dawladda Puntland waxayna ka mid tahay magaalooyinka sida xawliga u koraya xag dhaqaale bilic iyo dhismayaal taasoo ay u dheertahay nabadgelyo buuxda. Tirada dadka ku nool Garowe iyadoo laga ambaqaadiyo warbixin ay soo saartay hay'adda UNICEF sanadka 2015 waa in ka badan 100,000 oo dadweyne ah. baahida biyood ee ugu yar waa 200 mitir cubic halkii saac halka 30 cisho ay tahay 132,000 oo mitir cubic 12 bilood ee sanadka waa 1.584 oo mitir cubic waxaana maalin kasta sii kordhaysa baahida biyaha bulshada ee xagga isticmaalka iyo dhismaha wax badan oo caqabadaha way soo madhay oo xilliga la asaasay waxa lagu asaasay publiga wax ka yimi oo ahaa 3 line oo beeb ah haan biyood iyo ceel 5 mitir cube qaada dhinaca private-kana wuxuu ahaa waxa ka yimi maxaan ku yiraahdaa 105,000 oo loogu talagalay management-igi maadaama boolisigu marka ahaa shirkadu inay maafusho dhinaca private inuu maamulo maxaan ku yiraahdaa biyaha laakiin capitalku uu ka yimaado publiga xaqiisa sidaas haddii runta halka maraysay publigii wax dambe kama imaan intiina way ku socon weyn waxay noqotay shirkadii private-kii ahayd qaybtii private oo ganacsatadayada ahayd inaanu u qonno oo lacagtii 105,000 ahayd oo loogu talagalay motor mushaar maxaan ku yiraahdaa expenseska running cost-ga inaanu annaga capitalkii qaadno
meeshii 3 laynka biyo ahayd ay maanta marayaan 100 layn oo biyo ah maxaan ku raacay ceelashii 5 mitir kiiba halka ahaa meesha marayaan in 12 ceeliya ka badan inay shaqaynayso in maxaan ku yiraahdaa guri walba maanta guri dhifa ma ahayn inta badan 60% in ka badan ay biyo ku jiraan waxaynu waa ka dabooshay dowrkii injooyada dawladda iyo hay'adaha caalamiga ah kadib markii laga waayay wax gacan siin ah ee ku saabsan horumarinta biyaha hadda garow waxa istaa biyo ku filan haba xalaalaadeen oo biyo macaan waan weynay dhul badan baan biyo macaan ka daanay salaxley iyo meesha la yiraahdo la sahblood iyo biyana lagu sheegay laakiin kuwa lagu liibaanay dadkii waa qoyay biyo la helay nin walba haan bu kor saarsaday qubays baa la helay shaabur baa la helay dadkii alxamdulillaah rabbil caalamiin biyo laga noolaaday biyuhuna hadda qaalib maaha oo iska fiican yihiin dadku iskaga leedahay shirkadana waa ku mahad celinaynaa waxaan ugu mahad celinaynaa maadaama dadka biyaha macmiisha aanu nahay aad baanu ugu qushuucnay aad baanu ugu hambaliyeynaynaa waa shirkad 100% hadday shaqaalaheeda tahay iyo hadday maamulkeedaba tahayba dadka macmiisha ah si fiican u soo dhaweysa si fiicanna wuxuu la macaamisha